habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawa idin hayana waxa kamid ah kooxda Daesh oo maanta laga dilay tiradii ugu badnayd inta uu socday dagaalka kooxda laga sifeynayo buuraha gobolka Bari muxuu keenay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland oo muddo bil ah ku maqnaa dalka dibadiisa cagtana soo mariyay dalal badan oo Yurub ah geeyayna warbixin ku saabsan dagaalka ay Puntland ku jirto oo dawladda federaalka Soomaaliya ay caalamka ka qarisay sidoo kale waxaan arki doonaa Puntland oo markii ugu horeysay ka hadashay warar suuqa ku jira oo sheegaya in baasaboorradii ciidamada dhaawaca ah ee Puntland loo diiday oo dawladda federaalka Soomaaliya ay u diiday warbixinadaas oo dhan ayaan daawada kula wadaagi doonaa balse marka hore wax ka codsanaya in YouTube-ka ay ku soo biirto subscribe dhahda muuqaalka like noo saarto gambaleelkana furto si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ay halka ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo in ka badan 69 dhagar qabe oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Daesh ayaa maanta dileen ciidamada difaaca Puntland ee ku jira howlgalka Hilaac abaaro 9kii aroornimo ayay kooxda argagixisada ah ee Daesh waxay weerar qarxiyo ah oo ay ku soo xireen ilaa 8 naftood haligayaal ah waxay ku soo qaadeen ciidamada dawladda Puntland kuwaas oo yoolkoodu ahaa inay ciidamada dhex galaanin oo markaas isku dhex qarxiyaanin ciidamadan ay ka dhigaanin wax dhinto iyo sidoo kale wax qaraxa ka salala oo carara balse ciidamada dawladda Puntland oo u dhug lahaa weerarka kooxda ayaa toogtay 8 nin iyo sidoo kale ilaa 20 kale oo ka dambeeyay dagaal toos ah oo bilaamay ciidamada dawladda Puntland ayaa gacanta mariyay saldhigyo iyo fariisimihii ay weerarka ka soo qaadeenna ciidamada dawladda Puntland ayaa la wareegay oo hadda gacanta ku dhigay ciidamada dawladda Puntland oo dhiiranaan badan ka muuqato iyo in si fiican dagaalkan lagu diyaariyay ayaan wali guul darro kala kulmin kooxda Daesh waxaana muuqata in saraakiisha dagaalkan hogaaminaysa iyo dawladda Puntland ay aad dagaalkan ugu diyaar garoobeen marka loo eego kooxda ay la dagaalamayaan oo ah koox caalami ah oo Mareykanka iyo caalamka kaleba ka soo dagaalantay qabtana tababaro caalami ah isticmaalaysana hub casri ah diyaarado drones ah iyo sidoo kale qarxayo inay ku xidhaanin gawaari iyo sidoo kale inay naftood haligayaal u soo diraanin ciidamada difaaca Puntland balse waxa muuqata inay ciidamada difaaca Puntland aad uga digtoon yihiin weeraradooda iyo sidoo kale qarxayada ay kooxdu adeegsanayso afhayeenka ciidamada dawladda Puntland ee howlgalkan ku jira oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay inuu socdo wali dagaalkii saaka soo bilaabmaday kooxdana laga qabsaday saldhigyo lana eryanayo wali firxadkoodii oo baxsad ah waxa kale uu sheegay in ay jiraanin meydad badan oo ay kooxdu leedahay waxaana la filaya ayuu yiri in dhimashadooda ay ka badato intaan kor ku soo sheegnay oo ahayd 69 dhimasho waxa uu sheegay in godad badan aan wali aysan ciidamada u tagin lana filayo in halkaasi dhimasho badan iyo meydad badan loogu tagi doono marka ay ciidamadu halkaasi booqdaan dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Ilyas Ismail Lugator oo dalka dibadiisa ku maqnaa muddo bil iyo dheeraad ah oo maanta dib ugu soo laabtay Puntland ayaa sheegay inuu ku maqnaa sidii caalamka ugu sheegi lahaa dagaalka ay Puntland ku jirto si gacan looga siiyo aan dhahay dagaalka caalamiga ah waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in dunidu oo dhan ay og tahay dagaalka ay Puntland ku jirto subax walbana ay report ay ka qortaanin dagaalka iyo meesha uu marayo sidoo kalena waxa uu sheegay in hadii Puntland ay dagaalkan ay ku guuleysato uu kor u qaadi doono maqaamka Soomaalida ay caalamka ku leedahay taas oo adduunka tusinaysa ayuu yiri in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay iska dulqaado heeriyada argagixisada caalamkii ka reebtay waxa uu sheegay in hadii Puntland ay dagaalkan ay ku guuleysato sidoo kalena ay hore ugu soo guuleysatay ayuu yiri inay qabato doorashadii qof iyo codka ahayd ay caalamka iyo Soomaalida kaleba ay tusi doonto inay Soomaaliya rajo fiican leedahay muddo dheer kadib sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ay Puntland ku jirto sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay inay awal ka gaabisay dagaalka ay Puntland ku jirto ayuu sheegay in dagaalku wali socdo ayna hadda ka qayb qaadan doonto dawladda Puntland waxa uu sheegay inay diyaar u tahay aan dhahay in ay dawladda federaalka Soomaaliya dagaalkan ay ku soo biirto qaybteedana ka qaadato dhanka kale wasiirka warfaafinta dawladda Puntland oo ka hadlay warar dhawaan suuqa ku jiray oo ahaa in ciidamada dawladda Puntland ee dhaawacyada ah loo diiday baasaboorradii oo ka hadlay waxa uu yiri
markii hore aad ayay noogu adkeyd ama loogu adkeeyay inaan helno baasaboorada ciidamadayada dhaawacyada ah sidoo kale waxaa nagu adkaa diyaaradaha aan soo kareysano inay soo galaanin hawada Soomaaliya maadaama ay taas nagu adkeysay dowladda federaalka Soomaaliya balse markii dambe qayla dhaan badan waxaana loo ogolaaday inay dalka noo soo galaanin diyaaradaha aan soo kareysano sidoo kale waxa naloo fududeeyay baasaboorada ciidamada sidoo kale waxa uu sheegay wasiir Caydiid in dowladda Puntland ay ku jirto dagaal ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya ayna taas ceeb ku ahay dowladda federaalka Soomaaliya balse hadda ay garatay inay ay u fududeyso dowladda Puntland waxa uu sheegay in hadda ay baasaboorradii loo fududeeyo sidoo kalena ay helaanin diyaaradaha ay dalka u soo galaanin aan dhahe diyaaradaha ay soo kareystaanin kuwaas oo ka caawiya dhaawacyada iyo sidoo kale inay daawooyin u keenaanin waxa uu sheegay inay hadda caadi tahay oo baasaboorradii helaanin sidoo kalena ay dhaawacyadooda ay caadi u geystaanin dalalka ay rabaanin daawadi hadii halka nala soo gaartay mar kale waxaan ka codsanayaa in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahda muuqaalka like noo saarto gambaleelkana furato si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ee halka ku soo gudbino